sida in kala goosyada oo kaleeto ay xanuun baabi'i igu noqoto sababtoo ah waxa la ogaaday waxyaabaha ugu fiican ay tahay in kala goosyada ama rheumatism-ka ay u roon tahay ama murqa xanuunka iyo sida la midka kala goos xanuunka dadka ku dhaca ama jilbaha qof soo u yaqaan xanuunka ah ama rheumatism-da inay daawo u tahay. Assalaamu alaykum wa walaalkiin Torxadle maantana waxaan idin la wadaagi doonaa faa'iidada noo leedahay turmeric powder ama huruud. ma ogtahay in faa'iido badan oo caafimaad ay noo leedahay isticmaalka huruudda. waxaa ka mid ah faa'iidooyinkooda koow in qofka jirkiisa ay ka yareyso caabuqa iyadoo ka caawinayso difaaca jirka kor u qaadayso difaaca jirkaagana kor u qaadayso. waxay kaloo ay noo tahay waxyaabaha sunta laga saara ay jirka ka saartaa sababtoo ay jirkeena maalin kasta waxaa ku badan suntaas ay banaanka u saartaa. saddex waxay faa'iido u tahay waxaa la sheegay dadka kansarka qabo inay ka yareynayso inuu faafo ama xididada uu samaysto. waxay kaloo naga yareysaa cudurrada ku dhaca wadnaha. waxay kaloo faa'iido u leedahay maskaxda waxay soo saartaa ama ay qayb ka qaadataa in la soo saaro dheecaan maskaxda faa'iido u leh kaasoo ka caawina in nerve cellskii ay koraan iyo in ay nerve cellskii dhintaan. waxay kaloo oo lagu daaweeyaa cudurka loo yaqaano Alzheimer disease waxaa lagu ogaaday research la sameeyay in daaweyntiisa ay ka qayb qaadato. waxaa kaloo faa'iido leh oo la ogaaday dadka isticmaalo in ay ka yareyso da'da ay jiraan ay ka yar yihiin dadka la mid ah oo ay u sameyso anti aging wax la yiraahdo. waxaa kaloo la ogaaday dadka isku buuq qaba ama depression ka qaba inay u fiican tahay ay farxad iyo wax yar oo farxad leedahay. haddaba sidee u isticmaali karaa si aan u helo faa'iidooyin badan oo caafimaad sida in kala goosyada oo kaleeto ay xanuun baabi'i igu noqoto sababtoo ah waxa la ogaaday waxyaabaha ugu fiican ay tahay in kala goosyada ama rheumatism-ka ay u roon tahay ama murqa xanuunka iyo sida la midka kala goos xanuunka dadka ku dhaca ama jilbaha qof soo u yaqaan xanuunka ah ama rheumatism-da inay daawo u tahay. marka sidee ugu habboon oo ugu fiican loo isticmaalaa horta turmeric powder ama huruudda waxaa ku jirto compound loo yaqaano maado loo yaqaano curcumin kaas ayaa ah wax faa'iidada keenayo. curcumin kaas marka jirka lagama dhuuqo wax yar maahane si lagu dhuuqo wax fiican uga faa'iido waxa u baahan tahay laba shay in aad sida shaaho kale u karsato aad filfil ku darsato ama in aad ku cunto dufanka fiican sida loosaska ama hilibka kale ama dooro dufankeeda waxyaabaha dufanka leh oo dufanka fiican in aad kula cunto si dhuuqidiisa loo fududeeyo. haddaba waxaan kugu tali lahay haddii aad ka cabanayso jir xanuun ama lafa xanuun ama rheumatism waxay ku tahay dadka ugu fiican oo lagu tali lahay inay isticmaalaan. waxaan ku rajeynayaa inay isticmaashid ilaahayna kugu caafiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.